waxaa maanta duleedka magaalada Burco lagu soo dhaweeyay barasaabka cusub ee gobolka Togdheer iyo ifti ballaaran oo ay kamid ahaayeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Maayirka Gabiley xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada sidoo kale barasaabka Saraar intaasi kadib waxa uu waftigu gaaray goobta ay xilka kula kala wareegayeen barasaabka hore gobolka Togdheer Maxamuud Cali Salmaan Ramaax iyo sidoo kale barasaabka cusub ee loo soo magacaabay gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi munaasabadan waxa ka soo qayb galay odayaasha iyo waxgaradka gobolka Togdheer maayirka degmada Burco maayirka Gabiley gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer barasaabka gobolka Saraar qaar kamid ah xildhibaanada baarlamaanka qaranka Somaliland wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Somaliland iyo wasiirka biyaha iyo macdanta dalka Somaliland ugu horeyntiiba waxa hadalkaas ka daba qaatay odayaal uqaal dhalinyaro waayeel iyo waxgarad waxayna dhamaantood basakootiin barasaabkii hore gobolka Togdheer Maxamuud Cali Salmaan Ramaax waxayna soo dhaweeyeen barasaabka cusub ee gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi laba nin oo magaalada ka dhashay weeye midna waa soo shaqeeyay oo wasaaradteena midna inuu soo shaqeynaya waxaanu leenahay aad iyo aad baanu ka horana ugu ducaynaynaa kan dambana aanu ula shaqayn doonaa Maxamuud Salmaan oo gudoomiyeena hore ahaa oo aynu sii sabootiyayno hayiraaho Cabdi Xamse Maxamed Cabdi oo inankee gudoomiyeena cusuba oo aynu soo dhaweynayno ku qabsanayeen inna maanta ku wareegaya Gabiley midna waynu u sii ducaynaynaa sii sabootiyayna midna waynu ku salaamayna soo fadhiisinaynaa waxaan soo dhaweynayaa barasaabkayaga cusub Xamse Maxamed Cabdi waxaan leeyahay soo dhawaab Xamse dhanka kale waxa hadalkaas ka daba qaatay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dalka Somaliland barasaabka ku-xigeenka gobolka Togdheer maayirka degmada Burco maayirka Gabiley iyo barasaabka gobolka Saraar iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha dalka Somaliland kuwaas oo dhamaantood isagootii barasaabkii hore gobolka Togdheer Maxamuud Cali Salmaan Ramaax waxayna sidoo kale soo dhaweeyeen barasaabka cusub ee gobolka Togdheer una soo jeediyeen hadallo isugu jira talooyin iyo dardaaran waxaana kamid ah hadaladoodii seetan gobolka Togdheer waxaan leenahay gobolku waa gobolkaaga waa meeshaad ku dhalatay ku soo dhawow waxaan maqlayaa halala shaqeeyo barasaabka inta ugu horeysay marka la leeyahay war barasaabka halala shaqeeyo inta ugu horeysay la xasuusanaya waa meeyarka magaalada ama waa Maxamed Muraad waxaan maanta halkan idinku wadnaa inan dhalinyar oo xilkii ugu horeeyay ka qabtay Gabiley oo ku amaanan oo aad iyo aad lagu amaanay oo duco la soo raaciyay oo ay soo raaceen madaxdii Gabiley iyagoo jeclaaday habka uu shaqeynayay sida uu shaqeynayay iyo habka uu magaalada Gabiley u maamulayay waxaan martuunahay oo aan idinka soconnaa maanta intaas uu soo raacday in uu gobolkii uu u dhashay lagu soo bedelo labada barasaab wixii aanu odhanay Gabiley baanu ku soo nid halkan kelmad waxaan ka odhan doonaa reer Togdheer kelmadaasina waa tuu fariin iyo markhaati ay reer Gabiley ay bulshada reer Togdheer ay u soo marinayaan hawada guud ahaan geesta kale waxa hadalka soo afmaray labada gudoomiye xilka la kala wareegay gudoomiyihii hore gobolka Togdheer Maxamuud Cali Salmaan Ramaax iyo barasaabka cusub ee gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi waxaana kamid ah hadaladoodii seetan laga soo baxay xisbiyo waxa laga soo baxay kala qobqobnaantii oo wali ka jirta gobolka waxa taala waxa socon waayay sanad iyo barkii u dambeeyay hawlii qaranka ee horumarineed ee gobolka ka socday dhammaantood way isbedeltay haddaan beekaaga sheego waxa taagan mashruucii imika aanu soo marnay oo aataanka naga yara habsaatay oo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimiba halka joogaan oo dabdabiskiia oo magaaladu aad iyo aad ay ugu baahan tahay waxa taagan jeelkii baa taagan oo badantiisana aynu ogeyn halkii uu inagagala ballamayay madaxweynuhu waxa taagan dhakhtarkii oo keliya runtii maanta waa maalin weyn waxaan xilkii gobolka Togdheer kala wareegayaa barasaabkii 11aad Maxamed Cali Salmaan Ramaax ilaa iyo intii lagu soo noqday ee waddanka lagu soo noqday gobolka waxaa iska bedelay 11 barasaab anigu waxaan noqon doonaa barasaabkii 12aad dadweynaha reer Togdheer waxa weeyaan maanta waan dardaarmaynaa dardaaranka qofkii jabiyo waxaan leenahay ninkii reerkeena wax ka hagradow wadhaa iyo xaradaa wa jabtay dadweynaha gobolka inaanu cadaalad sameeyo ilaahay baa la hubaa waxaan hubaa inaan idin cadaalad samayn doono
ugu dambeyntii waxaa labada gudoomiye u kala wareejiyay xilka wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha dalkani Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye waa Cabdiraxmaan Ciise telefishinka caalamiga GTN magaalada Burco.